hadduu calafku ku dooray walaashay dugsiyay haddaan ku durbaantumiye oroskaagu dunidu gilgilay iyo dalkeeniye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ورمسيتهين في عنتهين حرجنا دمانتي إن في عنتهين أنا جنا سيدو كلوا في عنها الحمد لله نورمان أو مقنع أو مشغول بدن كتب وأسكسونا بالله الحمد لله روتين كان الصبح لما ساكل كانوا قبل بنايا حرجينا إلى دماتكنا إلى جوجين sidoo kale dadku cusub ay ugu soo biiray waxaan leeyahay waa mahadsantihiin soo dhawaada intii hore ila joogdana ilaahay ha idin sharfo marka saaka halkaan ka bilaabanayaa rootiinkeena meeshaan waxaan soo karinayaa kili ari iyo canjeero labadooduba hal mar aan dabka isla soo saartay maadaama saaka quraacda iga yara daahsaneed shaqo badan isugeysay marka waxaan rabay anigoo wax walba diyaariyay inaan guriga ka baxo insha Allah marka waa kana canjeeradeena geeskaas inoo soo saaran tahay halka meeshan geeskaana aan soo saaray basal baan dabka soo saaray kadib kilidii aan ku soo daray waxaan sugayaa in isla soo gaduudato kadib gadaal wixii aan uga soo dari lahaa aan uga soo daro marka maanta maalin dheer waaye hal igu qaato insha Allah marka waa kana hadda anigoo kilideen isku soo walaaqayo waxaan rabaa markay si fiican u soo karto wili gaduud waaye wixii aan ku dari lahaa inaan ku daro biidnillaah marka canjeeradina marba mid baan soo saarayaa hadda kilideena xoogaha way soo yara dhowdahay kadib waa kana hadda way soo kartay waxaan ku soo dareynaa wixii caraf aan ku soo darsan lahaa basal midacad iyo barbarooni saddex nooc aan ku soo daray maasha Allah waa kana hadda waa diyaar marka waxaan rabaa wax yar inay maxaan dhahayo barbarooniga iyo waxaas ay isku dhaxmirmaan caraftaas iyo waxaas is dhex galaan dabka wax yar zaid aan ugu gaabiyay maadaama ay kilida karsan tahay meesha canjeeradeena sidoo kale ayadana waa gabagabo wax u haray malahan dhowrka xabo u dambeeya maraya marka maasha Allah waa kana hadda quraacdeena sidaan saaka diyaar ku tahay marka waxaan rabaa inaan cid quraac qado casho u kariyo markaas aan baxo ka horna wixii yaalo dhan oo shaqo ah iska dhameeyo insha Allah walwal la'aan markaas aan baxo marka waa kana hadda cuntadeena saanida quraacdeena saanisa ka diyaar ku soo aheyd maasha Allah canjeerada midii u dambeysay wata hadda anigoo dabka ka soo qaadaya Allahumma baarik dabka hadda soo diminaya quraacdan kala qaybinaya meel istaag ma jiro saako haddana waxa waay isla markii jikada ku laabo oo maxaa la dhahayo waxaad soo karsataa waaye qadadina soo kari waaye marka ma duubin qadadii waa kana hadaan ilmaha u diyaarinayo meeshan chicken curry iyo waxa waay bariis cad qadadina maanta intaan ahayd kadib xilliga adiga hadda waa mar ay tahay 10 saac barmeelahaas rootigaan soo kariyay waxaan rabaa inaan ilmaha ka tago iyo cidaba wax walba ay isugu nidaamsan yihiin oo gabagab jirin adigana qofka ilmaha uga tagday soo maxaa la dhahayo uga mashquulin ilmaha wuxuu dhan ay diyaar u yihiin markasta aan meel aadaas sameeyaa wixii waqtigaas aan baxay wixii cuni lahaayeen oo dhan wuxuu dhan waa u diyaariyaa caanahooda cabitaankooda cuntadooda marka adigana sidaas ku fiican walwal la'aan ilmahaagana korka lagaaga ilaaliyo maasha Allah marka rootigaan soo kariyay waxaan maxaa la dhahaa gudaha ka soo galiyay hilib iyo cheese aan gudaha ka soo galiyay waa cuntooyinka ilmaha jecel yihiin cuntooyin kamid ah marka waa kana hadda sidaan quruxda badan oo diyaar ku soo ahaa waa kuleel haddana dabka ovenka ka soo bixiyay marka ma duubin oo waqti aan wax ku duubo maanta ma heenin qofkii rabo inuu maxaa la dhahayo yani rabi lahaana inkastoo u maleynaa dadka dhan inay wada garanayaan rootigan haddana qof hadduu u baahan yahay page-kayga ku jiraa dib ugu laaban karaa insha Allah marka hadda waa diyaar meeshaana waxaan sameynayaa hal aan soo fujinayaa asagoo wili qiiqa intuu qaboobay xataa ma sugi karo meeshaan u socdo waxaan rabaa inaan tago bacda maqrib inkastoo in aad iiga fogeen haddana waxaan leeyahay wax walba isku daba rid meeshaana marka kululeyso ku soo ridayaa sidaas quruxda badan oo jilaacu ku soo baxay kor ukun kama marinin waxaan ka soo mariyay caano booro oo wax yar aan soo yar adkeeyay ayagoo dhakruuran kor ka soo mariyay marka maasha Allah tabaarakallah cashada sidaanay ahayd maxaa la dhahayo kadib maxaan sameynaynaa kadib waxaan rabaa kala meeshan inaan usoo diyaariyo cabitaan
maadaama maqribka tagaaya cabitaankaasi cabaan hadhowna markay seexanayaan caanahooda la siiyo. marka meeshaana waxaan kusoo miiray liin macaantiyan soo miiray fridge waxba lama gelinayo intii dadka waaweyn unba fridge la gelin intii ilmihii yareed waxaa la sameynayaa garaafahan lagu dhuujinaa jikada gees laga dhigayaa. marka waa kana cashadeena sidaanay ahayd. Allahumma baarik. kadib waxaan sameynayaa jikadan hadda kasoo farxalanayaa aniga waxaan isku bilaabayaa inaan isdiyaariyo maadaama aan u socdo aroos ama bridal shower. kadib waa kana haddadaan meeshaana waxaan soo baxsaday makeupka intaana marsanin baan duubayaa. waxaan rabaa inaan idin tuso maadaama aan marsanay idin arki karin. waxaan rabaa nooca marsanayo iyo siduu u ekaa inaan la wadaago. marka waa kana wixii dhan waan soo baxsaday maxaan dhahayo foundationka iyo concealerga iyo laba xabaan qabaa. marka waxaan dhahay midkee qaadataa. marka adi ugu dambeyn go'aankii waan gaaray kuwa isticmaali lahaa wixii dhan baa isku dabiritay iyo lipstick isticmaali lahaa maasha Allah. waa kana marka hadda waxaan dhan ayagoo sidaan noogu diyaar ah waxaan guda galayaa inaan marsado kadib mid walba meesha aan kasoo qaadaan ku celiyo insha Allah. kadib waa kana outfitka aan xiran lahaa ama cabaayada aan xiran lahaa maadaama arooska meesha aan tagaayo bridal showerka la xiranayay maroon gabadha aroosadan waxay xiranaysaa dhar cad. marka waxaa la rabay wixii dhan in la isku maajgareeyo. marka waa kana cabaayadan maroonka ahaan xiranayay iyo maxaa la dhahayo dhagahaas iyo saacadii waxaasaan u isticmaalay maasha Allah. marka haddadaan diyaaraan ahay waqtigan waxaan sugayaa taxigii baan dalbaday inaan baxo insha Allah. marka waa idin tusaya meeshay kusoo baxday. kadib waa kana meeshii markaan tagay gabadha la aroosay waxaa la dhahaa Kowsar gabadh walaashay ah ilaahay reerkeeda ha u barakeeyo. meesha xafladda lagu dhigayo waa kana maxaa la dhahayo waa maroon iyo cadaan waa dharka la qaba si kala yihiin. dadka maroon ay qabaan gabadha aroosadana dharkeedu wuxuu ahaa cadaan. marka haddadaan dad badan ma joogaan meesha wili meesha lama fadhiisanin gabadhina wili ma imaanin. marka waxaan dhahay bal duub oo asxaabta la wadaag meesha u egtay maasha Allah si loo decorate gareeyo qurux kaaliska arag lagama sheekeyn karo maasha Allah. waa kana gabadhi magaceedii kaararka ku wada qoran yihiin Kowsar. kadib waa kana marka hadda marba dhinacan duubaya waxaan leeyahay sida inay meesha kula joogeen oo kale waa inaan ka dhigay asxaabta oo luuq walbo iyo dhinac walbo aa u sawirtid maasha Allah. sidaana u qurux badneed meesha gabadha fadhiisan lahaydna halkaas waa dhinacaas. marka sidaana u qurux badneed hoolka xafladda maasha Allah. meesha hadda xilliga adiga waa 1 saac habeenimo dadka jooga way yar yihiin inkastoo dad badan ay gadaal ka imaadeen. marka sidaanay ahayd boodhka halkaasuna ku dhagan yahay maasha Allah tabaarakallah. kadib meeshaan qaybta kale idin tusayaa oo cuntada ayadana wili markaan cuntada lama qaybinin. meeshaan bariis 2 nooc hilib ari meeshaan waxaa kaloo yaalo malaay baasto digaag maraq lagu qofkii raba isticmaal lahaa saladkii mooskii cabitaankii basbaaskii wax meeshaan ka maqan malahan aan ku dhahay aad ay u qurux badneed maasha Allah. servicekoodana zaaid u fiicnaa lagama sheekeyn karo. marka sidaanay ahayd maalinta xafladda Allahumma baarik. kadib waa kana hadda marka anagoo maxaan lahaayeen soo cunteynayno cuntadii soo ridanay aniga gabar walaashay kala meesha isla fadhinay labadeena saxan markaan soo qaadano baa waxaan iri bal aad duubtid. kadib waa kana haddadaan cake yaa la keenay the bride ku qoran iyo faraantiyaashii maxaan lahayo taariikhdii wixii dhan Allahumma baarik. sidaana u qurux badnaa lagama sheekeyn karaan ku dhahay hadal ma karin. marka intaana keega la jarin giftiskana aan la bixinin meeshaana lasoo buraanburayaa gabadha wataasa waxaa waaye qofka marada cad qabo dadka kale oo dhanna maaruun ay qabeen la allow ras wax ka yee oo allow reerjira ka yee oo allow uma khayr la sii la allow wiilal iyo gabdhale Allah baraare allow ka yeel si hadda ya Allahu baari oo Allah arooska yago kuwa la arooska yago kuwa la nimciya khayr badan kuwa Allah baraare allow ku sii Allahu baari xafladeena sidaanay ahayd quruxda badan ilaahay walaashay reerkeeda ha u barakeeyo waa isku soo nabad laaban doonaa insha Allah fi amaanillah
باي باي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.